بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa runtii inaan ugu horeyn aan u mahad celiyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Jowle, xisaabiyaha guud, agaasima ku-xigeenka dakhliga, agaasimayaasha canshuuraha biriga, qaybta gaadiidka, qaybta maamulka ee wasaaradda maaliyadda, qayb kasta oo wasaaradda maaliyadda ka mid ah halkan joogta. runtii waxaan rabaa in aad iyo aad ugu mahad celiyo dadaalka dheeraadka ah oo ay sameeyeen diyaarinta ay diyaariyeen baabuurta tan oo 8 ah, 7 hadda halkan bay noo joogtaa, iyo baski weynaayo loogu talagalay dekedda Boosaaso oo asagana Boosaaso maaragtay naga jira. waxay ka mid tahay gaadiidka kan maanta la wareejiyey horumarka wasaaradda maaliyadda, iyo annaga oo rabna gaadiidkan ujeeddadiisu ay tahay in dakhliga wasaaradda maaliyadda kor loo qaado. sida ugu badan oo gaadiidkan lagu wareejiyey waa qaybaha dakhliga iyo turbataariyada. ujeedkuna waxa weeye baabuurtan ma aha baabuur lagu xaragoodo, waa baabuur wax soo saar waayo. waxaan rabaa inaan ku dardaarmo baabuurta tan sida agaasimuhu sheegay kulligood GPS in lagu xiro, haddana baabuurta tan la xanaaneeyo. baabuur cusub waayo, cid idinkaga horreysay oo halkan joogtaa ma jirto. siday dekedda uga soo degeen baa laydinku wareejiyey. baabuurtaas marka waxaa la rabaa in si gooniya loo xanaaneeyo, shaqooyinkii loogu talagalayna lagu qabto oo ah wax soo saarka iyo kordhinta dakhliga. maantay baabuurtan ma timaadeen in la iibiyo laguna wareejiyo hay-adahan haddii agaasimaha guud, xisaabiyaha guud, agaasima ku-xigeenada, qaybta maamulka, qaybaha kala duwan ee wasaaraddu haddaysan dadaal dheeraada samayn. runtii tiim waxaad tihiin aan ku faani karno, tiim waxqabad aad iyo aadna waa idinkugu mahad celinaynaa. dadaalkaas iyo mas-uuliyaddaas aan u hayno dowladda Puntlandna waxaana la ka rabaa mar walba inaanu laba jibaarno, wasaaradahana iyo hay-adaha kalena aanu u noqonno example. sidaan tiimka ah oo aanu u wada shaqaynana loo baahanya mar walba inaanu u wada shaqayno oo dadaalkeenna aanu aad iyo aad u sii kordhinno. insha allah qaybaha kalena mustaqbalka dhow ayaa waxay noogu jirtaa qorshe.